haddii aan ku hormaro sidaan ognahay Soomaaliya muddo 20 sano ku dhawaada waxay ku jirtaa dhibaatooyin. As we are aware, there is Somalia is facing a crisis and a problem in the past 20 years. Intaana waxaa maamulayay qaramada midoobay, midowga Afrika, IGAD iyo kuwa kale. And during those 20 years, the UN, AU, and others were involved in handling the Somali issues. Dhibaatadan way sii baahan Soomaaliya. And with that, again, the problem was just extending, expanding. raji intee la eg ayaa lagu qabi karaa isku dayga ee hadda wadaan qaramada midoobay AU iyo IGAD iyo kuwa kale. So how optimistic are you as UN AU that now your efforts will fruition and it will achieve to the desired goal? AUUN. We should understand that every conflict is different from another conflict. Waana horta ogaanaa in dhibaato kasto meel ka jirtahay in dhibaatadaasi dhibaatooyin meel kale ka jiraay ay ka gidisanta. So there is no standard textbook in which you can get answers to answer the problems of every conflict. Marka ma jiro book ay ku qoran tahay jawaabaha dhibaato kasto meel ka dhacday jawaabteeda waa kala dhaay laga qorayo ma jirto. You only have to study to understand the nature of that conflict and keep on trying to find ways of solving that problem. Marka waxay ka dalbanaysaa dhibaato walba inaad darasid, aragtid, ogaatid, kadibna hal aad raadisid. The Somali crisis is unique in that it's a problem that defies all other experiences of conflicts in Africa. Arrinta Soomaaliya dhibaatada ka jirta dhibaato gaar ah way khaas ah marka una muuqata dhibaatooyin kale oo Afrika ka dhaxdhacay mid ka gedisan inay tahay xalalkii loo helay xalal aan ahayn bay dalbanaysaa waa ka gedisan tahay dhibaatada Soomaaliya. Because it has all the ingredients which are missing elsewhere in Africa to make a united and a stable nation. Maxaa yeelay waxyaalaha meelaha kale ka jiro Afrika inteeda kale ka jiray iyo halkaan it is a country with a long history of a common religion. It is a country with a common language. It is a country with shared and common cultural values. It is a country that has a proud and long history, then written history as well as oral history that goes for over 1,000 years. But it is a country that has faced a crisis which is defying a solution for the past 20 years. That makes it necessary to understand the root causes, the complexity of this, and what is underneath. And that's why it is taking time. You learn as you try to get solutions. But I'm very optimistic that the solution will be found, because every effort to solve the problem contributes, is a building block towards getting a solution. Some of the mistakes have been made by the international community.
For example, when the whole international community ran away from Somalia in the early 90s. markii 90kii bulshada caalamka oo dhan Soomaaliya isaga wada baxday dalka oo dhan laga wada tagay qalad bay taas You don't run away from a problem. You stick to the problem to understand it and try to solve it. dhibaato laga baxaro dhibaato waa loo joogo loo dhabar adeega waa la dirsaa waa la xaliyaa markaas Because if you run away, the problem not solved, it becomes more complicated. haddii dhibaato ka aragti aad xalin dhibaato waa si adkaanaysa waa la sii xumaanaysa We have come back, waa soo noqonay but only to find out that a conflict which started as a civil war had degenerated into warlordism. markaan soo noqonay dhibaato on harb ahliye ka bilaabatay ayaa waxaan u soo noqonay warlordism isu bedeshay It has degenerated into terrorism. haddana argagixis isu bedeshay dhibaatadii It has degenerated into different interpretation of a common religion. haddana waxay isu bedeshay isla diin hal diin ummad wada haysatay oo dhowr siyaabo kala gedisan loo kala macnaynayo ay isu bedeshay haddana It has given rise to conflicts which we thought had disappeared 200 years ago, but is coming back, called piracy. dhibaato 200 sano hadda ka hor la xaliyay ayaa hadda soo noqotay oo ayada murcadbadeeda oo horeyba aanu jirin So this is because of half measures to solve the problem, and we have to stick to it. intaas aan idin sheegnay marka waa un dhibaatooyinka jiro oo wax qaar ka mid ah idin sheegay marka inaan dhibaatadaasi aanu la joogno wax ka qabanno oo mise wax u qaban aan isku dayno marka If we don't solve it with comprehensive measures, it will degenerate into something else worse. haddii aan marka si guud dhibaatada hadda loo xalinin macno kale yeelanaysa waxyaalo kaleeto hadda idin sheeg ka xun ayay isu bedeli kartaa We have witnessed the bombing in Kampala. waxaan aragnay bombkii qaraxii ka dhacay Kampalaan aragnay We don't know where next it will go. tan labaad meesha kale oo ka dhici doonta ma garan karno The problem of piracy used to be called off the coast of Somalia, but now it is off the coast of Eastern Africa and Southern Africa. awal waxaa la dhihi jiray burcadbadeedka arrintooda waxay ka dhacaysaa dhulka xeebaha Soomaaliya ka baxsan hadda waxaa la leeyahay dhulka ka baxsan xeebaha Koonfur Afrika iyo meelo kale oo kasii fogaan leeyahay The Gulf of Aden is relatively safer today than the Mozambique Channel. Gulf of Aden ayaa Gulf of Aden ayaa maxaa la hadda ka amaan badanba gacan gacmeed In the deep seas, there are literally scores of the most sophisticated naval ships and 24 hours of aerial surveillance. And the boats are no longer found in the deep seas. They are closer to land on territorial waters. The piracy boats. badaha oo maxaa la yiraahdaa oo waaweyn oo 24 service lagu hayo burcadbadeedka doomankooda jir meelahaas jira meesha tagaan inta xeebta ka tagaan meeshaas badda weyn ay tagaan That is why I'm saying this problem, you have to stick to it because it mutates. If you have half measures, you have to have comprehensive measures. saasaan u leeyahay dhibaatadaasi waa in maxaa la yiraahdaa si joogto ah looga warqabaa wax looga qabtaa half measure talaabo nus wax loo qabto wax ma tarto si guud waa wax loo qabtaa dhibaatada I am very optimistic. There are conflicts in the world that have lasted for many years in history. waxaan taariikhdayna baraysaa in dhibaatooyin intaasoo sano jirtay ayaa jiray waxna laga qabtay Those who have read European history, we read of the 100 Years' War, the 30 Years' War. nimanka wax ka yaqaana taariikhda reer Yurub dagaalo 100 sano socday ama 30 sano socday ayaa jiray The political crisis in South Africa, which started over 60 years ago, we never thought there'll be a solution in our lifetime. dhibaatada Koonfur Afrika ka jirtay oo taqaanaan oo intaasoo sano jirtay intaan anaga noolnahay xal loo helay ma lahayn 60 sano ka hor bilaabatay intaan noolnahay waa la xalin ma lahayn waa la xaliyay haddana We have witnessed a solution in our lifetime. halkii aan aragnay anagoo nool intaan dhimanin bacd So I'm very optimistic we can find a solution to the Somali marka problem. aniga optimistiga aan ahay rajo ka qabna arrinta Soomaaliya xal la helay We must be persistent. haddii aan ku hormaro sidaan ognahay Soomaaliya muddo
labaatan sano ku dhawaada waxay ku jirtaa dhibaatooyin. As we are aware, there is Somalia